kulanti waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo Maxamed Ibrahim Macallim uu magacaabay afhayeenka xukuumadda lay hubaysan oo dad rayida ku diray gobolka Hiiraan iyo Cabdullaahi Goodax Barro oo dawladda u jeediyay eedamihii ugu cuslaa qodobada iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan haddana ku soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilaabanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa afhayeenka xukuumadda u magacaabay Maxamed Ibrahim Macallim oo ahaa wariye Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Maxamed Ibrahim Macallim oo horay uga soo shaqeeyay warbaahinada kala duwan ee magaalada Muqdisho sida ilaacadii Horn Afrique, BBC-da iyo wali warbaahinno kale ayaa hadda waxaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabay afhayeenka xukuumadda. Maxamed Ibrahim Macallim ayaa waxa warqad uu soo saaray ra'iisul Soomaaliya uu magacaabay inuu noqdo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya waxaana maanta uu si rasmi ah u noqonayaa wixii laga bilaabo inuu noqdo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ee muddo xileedkeedu uu kooban yahay. Macallim ayaa waxa uu hadda ahaa garabka saxaafadda Soomaaliyeed ee uu hogaamiyo oo loo magacaabo Fasooj waxaana hadda uu loo dalacay inuu noqdo afhayeenka guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dablay hubaysan ayaa waxa ay magaanta gobolka Hiiraan ku dileen qof rayida. Dablay hubaysan ayaa baabuur ka soo baxay magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne ee deegaanka lagu magacaabo Bacda ayaa waxa ay ku dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Sikriya Casayr waxaana halkaasi ay ku toogteen kadib markii ay kala dageen baabuurka. Dablaydan hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay markii halkaasi ku toogteen wiilkaasi la socday rakaabka waxa ayna aana qabiil ugu direen halkaasi. dadka deegaanka ayaa waxay aad u cambaarayeen falkaasi ay ku toogteen maleeshiyaadkaasi waxaana hadda socota qabanqaabada xariisad lagu dajinayo halkaasi oo ka dhalatay qofka rayidka ee maleeshiyaadkaasi halkaasi ay ku direen. gobolka Hiiraan ayaa waxa baryahanba ka socday dagaal beeleedyo u dhaxeeya iyaga oo muddaba ay soo jiidamatay colaadda u dhaxaysa deegaamada waa maleeshiyaad ka soo kala jeeda deegaanada Matabaan iyo waliba gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweyne. Cabdullaahi Goodax Barre oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa eedamihii ugu cuslaa u jeediyay dawladda Soomaaliya. Cabdullaahi Goodax Barre wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaday in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u hogaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay gabi ahaanba gabtay wixii loo doortay. waxa uu horeynba uu eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya uu ku eedeeyay in magaalada Beledweyne dadka rayidka ay xasuuq u geysteen isagoo sheegay in qaarna ay xirxireen. waa sharci darro in dad bannaan baxaya oo fakarkooda dhiibanaya oo saamay qaybsiga aan ku qanacsan in la xabsiga loo taxaabo. waxa uuna ciidamada AMISOM ku eedeeyay in ay ka baxeen wixii loo idmaday oo ahaa mandatekooda waxa uuna sheegay inay ku ekaadaan in ay sugaan ammaanka guud ee dalka gaar ahaan gobolka Hiiraan laakiin ayna gelin arrimaha hoose ee gudaha ee gobolka Hiiraan. waxaana Cabdullaahi Goodax Barre uu ugu baaqay in la soo daayo dadkaasi xirxiran. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay doorashada Soomaaliya isagoo oo shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo inuu gabi ahaanba uu qar ka tuuro doorashada Soomaaliya waa sidoo hadalka u dhigay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu Goodax Barre intaasi sii raaciyay. Goodax Barre ayaa waxa uu sidoo kale sheegay arrimaha gobolka Gado in loo isticmaalayo siyaasadda waa nasiib darro buu yiri in loo isticmaalo arrimihii doorashada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka qaranka in arrimo siyaasadeed loo adeegsado waa soo hadalka u dhigay waxaanu ku tilmaamay ciidamadaasi kuwa siyaasad laga leeyahay. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee ugu dhawaa madaxweynaha Soomaaliya bilooyin ka hor ayay ahayd markuu booqday gobolka Gado isagoo ah wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxa uuna la dhacsanaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hogaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bilooyinkii sanadihii ugu dambeeyay. laakiin dadka qaar ayaa isweydiinaya Cabdullaahi Goodax Barre markii laga reebay xukuumadda ra'iisul Rooble ee golaha wasiirada lagu soo dari waayay inuu mucaarad ku noqday waxaana muddo hore oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud sidan oo kale uu ugu noqday mucaarad kadib markii uu riday xukuumaddii Sheekh Cabdiwali oo uu sheegay in uu ay qabtay wixii loo idmaday.
ninka lagu magacaabo Cabdilaahi Goodax Bare ayaa waxa dadka Soomaaliyeed ayba ku eedeeyaan inuu yahay nin aad iyo aad isku bedel badan oo markii xilka laga qaado gabi ahaanba uu ka hor imaanayo xukuumaddiisii waa sida dadka qaarkood ay arkaan guud ahaan warkii caalamka kala socoteen janna qaar ku leeyahay abshir joker YouTube ku wanaagay intaas nabadgelyo.